saddexda bisha Disembar ee sanad kasta waa maalinta loo aqoonsaday maalinta xuska naafada adduunka. Caalamweynaha dunida oo dhan ayaa laga xusaa maalintan oo kale. Halkani waa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Kuwan idin muuqana waa qaar ka mid ah dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalinta naafada adduunka, gabi ahaanba Burco lagama xusin. kuwana waxa ay ka hadlayaan baahiyaha kala duwan ay qabaan, isla markaasina waxa ay sheegeen inaanay cid waxba la qaban. naafada Soomaaliland iyo duruufaha ku xeeran iyo caqabadaha hortaagan u diiday inay horumar ka gaadhaan baahiyooda asaasiga sida waxbarashada, shaqooyinka, ganacsiga iyo ka qayb qaadashada siyaasadda. runtii mushkiladahaasi oo ah duruufo ku xeeran balse aan cidi dareysanayn. dadku si sabab waa laba qaybood, qayb naafa iyo qayb aan naafahayn. annagu haddii aanu naafada nahay runtii waanu cabanaynaa, waxaan ka cabanaynaa walaalahayga lixaadka qaba, sababtoo ah ayaga ayaa maamulkii gacanta ku hayay, dowladnimadii ayaga ayaa magaranaysaa waxbarashadii gacanta ku haya, ayaga ayaa magaranaysaa siyaasadii iyo magaranaysaa dhaqaalii gacanta ku haya, hantidii ummadu lahayd iyagun baan isku finaysiiyey. waxaanu leenahay runtii naafada waa in la ogaadaa oo magaranaysaa waxyaabo badan oo ay dareemayaan oo u diiday inay baahiyooda asaasiga ay guulka gaadhaan. xukuumaddana waxaan leeyahay iyo danayaasha arrimaha naafaduna ballanqaadada fara badan aad samaynaysaan waa inaanay noqon afkoo keliye, waa inaad ficil beddeshaan oo ay noqdaan kuwo magaranaysaa dee la taaban karo oo aanay noqon afkoo keliya. marar badan waxaynu maqalnaa naafada la garab taagan yahay ama la dhiirigeliyaa ama waxaan loo qabtaa, laakiin ma noqoto mid magaranaysaa midho dhasha. waxaan moodaa inay noqoto oo keliya waxna ha u qaban qowda maqashada. wax horta ururo gobolka Togdheer ka jira oo shaqeeya oo naafa ah haba yaraatee ma jiraba. dhowr jeer hore qaar NGO ay sameeyeen, qaar waddanka ba iskaga tago ka taariibay markay hawshii ay u suurta gashay anaga ay noo qabteen ma nooragay way jiraan. wax gobolka Togdheer gebigeeda haba yaraatee urur oo naafo ku saabsan oo wuxuu qabtaa haba yaraatee ma jiraba. marka xukuumadda maanta jirta iyo kuwii hore midnaba wax hadaan nahay bahda naafada wax taa kulaanu ka haysanaa midnaba horta ma jirtaba. taas waa taa meena bilaadanka ka mid ahayn codkana laga helaa. maayar baa noqon karnaa, xildhibaan baa noqon karnaa, waxbarashaan u baahannahay. wax taa kula haba yaraatee dawladda tan ay maanta joogta iyo tii hore mid taa kula aanu ka haysanaa ma jirto. waxaa jira ururo sheegta in iyagu u dhaqdhaqaaqaan naafada adduunka iyo sidoo kale naafada ku dhaqan gudaha magaalada Burco, balse naafooyinka kala duwan ku dhaqan magaalada Burco ee noocyada walba leh ma haystaan waxyaabo ay ku daboolaan baahiyahooda kala duwan, isla markaasina ay qabsan kari lahaayeen haddii ay qabaan lixaadkooda sidani ka dhigay. gabi ahaanba magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maanta cidi kama xuseen maalinta naafada adduunka. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camaar, telefishinka caalamiga ee Somali News, magaalada Burco.